Kooxo hubaysan ayaa weeraray hotel qaali ah oo ku yaala Paris iyagoo isku ekaysiiyey boolis. Waxay ahaayeen 5 nin oo hubaysan, bartilmaameedkooduna wuxuu ahaa hal qof oo keliya, Kim Kardashian. Daqiiqada gudahood, qolkeedu wuxuu isu beddelay goob lagu fuliyey mid ka mid ah tuugada ugu waaweyn ee hubaysan ee ka dhacda Paris, iyada oo aan jirin wax iska caabin ah, digniin ama cid dabagasha. Su'aasha muhiimka ah ayaa ah, maxaa Kim Kardashian si gaar ah loo bartilmaameedsaday? Maxay tuugadu raadinayeen? Ma ahayd oo keliya tuugo mise waxaa jiray qorshe ka weyn? Kim waxay timid Paris xilli mashquul badan, toddobaadka moodada magaalada oo ay ka buuxaan dad caan ah iyo warbaahin. Wax walba waxay u muuqdeen caadi, balse iyadu ma ogeyn in la daba socday tan iyo markii ay diyaaradda ka degaysay. Dhaqdhaqaaq kasta waa lala socday, xitaa meesha ay degayso. Waxay dooratay qol gaar ah oo hotel qaali ah, meel ka fog buuqa, meel ay u malaysay inay ammaan tahay. Kadib maalin dheer oo shaqo ah, waxay ku noqotay qolka si ay u nasato. Laakiin habeenkaas wuxuu isu beddelay riyo xun, maadaama ay qolka ku haysatay sanduuq dahab ah oo qiimihiisu yahay malaayiin dollar. Saacaddu markay ahayd 3 habeenimo, waxay maqashay codad, tallaabooyin iyo hadal aan la fahmi karin. Ka hor inta aysan falcelin, albaabka ayaa la jebiyey, 5 nin oo u labisan sida boolis ayaa gudaha u soo galay. Waxay ku hanjabeen, hub ku xireen xarig, afkana ka xireen. Kim waxay sheegtay in daqiiqadaas ay u muuqatay in nolosheeda oo dhan ay hortooda ka socoto, waxa keliya ee maskaxdeeda ku jirayna ay ahaayeen carruurteeda. Tuugadu waxay bilaabeen inay qaataan wax kasta oo qiimo leh. Lacag, saacado, dahab iyo sanduuqii dahabka. Hal mar ayay Kim aragtay sawirkeeda oo ka dhacay mid ka mid ah tuugada, markaas ayay fahamtay inaysan tani ahayn tuugo caadi ah, waxay ahaayeen dad si gaar ah u bartilmaameedsaday. Markii ay dhammaysteen, waxay ku xireen musqusha iyada oo weli xiran. Muddo kadib, Kim waxay go'aansatay inay isku daydo inay isbadbaadiso. Waxay si dhib badan ugu guulaysatay inay gacmaheeda ka furto xarigga, inkastoo ay dhaawacantay. Ugu dambayn waxay ogaatay albaabka inuu furnaa, wayna baxsatay iyadoo qaylinaysa. Shaqaale hotel ayaa arkay oo caawiyey, booliskana waa la wacay. Baadhitaan kadib, waxaa la ogaaday in tuugadu si xirfad leh u shaqeeyeen, iyagoo ka fogaaday waddooyinka waaweyn, taasoo muujinaysa inay si fiican u yaqaanaan magaalada. Ugu dambayn, waxaa la ogaaday inay ka tirsan yihiin koox waayeel ah oo horay u jirtay. Kooxdan waxay isticmaali jireen habab duug ah si aysan u reebin raad dijitaal ah. Markii la qabtay, mid kasta wuxuu sheegay sheeko kale, balse mid ka mid ah ayaa sheegay in ay jireen dad kale oo ka dambeeya, shabakad weyn oo ka ganacsata dahabka dadka caanka ah suuqa madow. Ugu dambayn, maxkamad ayaa la soo taagay, waxaana lagu xukumay xabsi u dhexeeya 3 ilaa 7 sano, maadaama ay ahaayeen dad da' ah. Sheekadan waxay muujinaysaa in dembiyada qaarkood aysan ahayn keliya tuugo, balse ay ka dambeeyaan qorshayaal waaweyn iyo shabakado sir ah. Waxay sidoo kale iftiiminaysaa dhinaca maskaxda aadanaha, sida qaar ka mid ah dadka ay u raadiyaan khatar iyo xiiso, taasoo mararka qaar u horseedi karta dembiyo. Dhammaadka, fariintu waa mid cad: waa muhiim in la feejignaado, la wacyigeliyo nafta iyo carruurta, gaar ahaan xilligan tiknoolajiyada iyo internetka si xawli ah u horumarayo.